waxaa jiri jiray nin iyo xaaskiisa. ninkii shaqada ayuu ka yimid, markaas ayuu ku dhahay gacaliso, hooyo ayaa xanuunsan, waan aadaynaa ee maxaan u qaadnaa? markaas ayay ku tiri gacaliye 3 saliid macsaro ah iyo kiilo hilib. markaas ayuu ku yidhi, ma intaa unbaa? markaas ayay ku tiri, haa, maxaan lacagta isaga khasaarinaynaa? markay safarkii gudagaleen ayuu ku yidhi, gacaliso hadda ma intaas oo keliya ayaan u qaadnaa? haa gacaliye, intaa unbaa ku filan. markii ay xoogaha socdeen ayuu u lixiyey baabuurka waddadii ay deganeed gabadha hooyadeedii. markaas ayay weydiisay, qofka aan u soconno ma hooyadeebaa mise waa hooyadaa? markaas ayuu ku yidhi, waa hooyadaa. waxay bilowday calaacal ayadoo le gacaliye, intaan naguma filna ee dib inoo celi, alaab kale aan soo gadane. hooyadaa ayaan u malaynayay. markaas ayuu ku yidhi, maya, laabasho ma jirto. marar badan ayaan kugu celceliyey, ma intaa oo keliya miyaynu qaadnaa? adiguna haa ayaa tiri. fadlan walaal la jeclow dadka kale waxaad naftaada la jeceshahay.